danan waa deeq ilaah dalkeena loo dhiso dadkeena loo hayaa dantooday baahisa xaqiiqday dahrogta taariikhda daboolan iyo mida duugowday bay haddana dib u soo fagtaa dadkana ka raarida danan radio danan waa deeq ilaah dalkeena loo dhiso dadkeena loo hayaa midnimay daajisa kala taga daashadiyo colaaday uga digta nabaday doorbida danan radio bulshada midka ugu daran daciifkan laga warayn wixii deeq siin lahaa duruufta ka bixin lahaa dunida ugu baahisa danan radio daayirta soo korta dariiq wacan loo fala dadoo wax kaleeta iyo hadday diin noqon lahayd duruus wacan bay helaan danan radio dadow idilkiin ma danan baad dhagaysataan ma warar dihan baad heshaan xaggee baad degantihiin dalkayga dibadiisa ma diin baa laga maqlaa ma duruus baad dhagaysataan allay leh daacadow danan waa lagu ogaa haddii sabanku baaro abaaruhu duqlayeen inagun darciidahay duudsiyayn abaalkii u gurmada dadkeen ayaan wax noo dhigan intaan dunida joognaa la istaadeheeya dagankii dadkoo idin inuu daayin fareesh u gurmada dadkeena dhaqaalaha dalkeena dooyada afdhabaane xoolaheenan dabargoay yaana cidi danaynay بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ay Sakariya Cabdullaahi Cilmi gudoomiyaha waaxda saddexaad Cumar Fiyaaska degmada Kaxda maanta inta halkaan waxaa deeq soo gaarsiiyay raadiyo danan deeqdaas oo ka koobneed raashin iyo dharka xirtaan dadka kala duwan sida hooyooyinka carruurta yaryarka aabayaasha halkaan mar kale waxaan uga mahadcelinaynaa raadiyo danan u dinqaday bulshada Soomaaliyeed ee abaaraha la daala dhacayaan ee gobolada
gacanta lixaad kale ka geysatay waxaan rajaynaynaa mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad inay meeshaan soo gaarsiiyaan baahida laguma soo koobi karo 50 qof ilaa 100 qof ilaa 1000 qof laguma soo koobi karo dadka baahan ee degmada Kaxda sida rasmiga ay hadda u soo gaaray ee dibadejinta u sameeyay tiradii ugu dambeysay ee usbuucan u sameeyay waxay ahayd 15,000 oo qoys qof maahan oo qoys waa dareemi kartaan hal degmo ma saacidi karto waxaan rajaynaynaa raadiyo danan kaalinta lixaad kale ee maanta meeshaan ka geysteen inay idaacadaha kale bulshooyinka Soomaaliyeed ururada dhalinyarada nooc walba maanta waxaad dareemaysaan haddii sidaan aanaka isku garab istaagno inay wax badan hagaagayaan dadkan maanta dadkii bigjarro dadka qaarkood u leeyimaadaan bigjarre tirsadaan laakiin raadiyo dan wuxuu la yimid bulshada Soomaaliyeed ee xaq u lahayd ee hooyooyinka ahaay ee ururta yararka haystay oo qaarkood caafimaad darro meesha ku haysay inay maanta raashinkan soo gaarsiiyaan ummadda kale Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa fariintan dadkii loogu talagalay ay ku socoto way soo gaartay midaan iyo mid la mid ah waan rajaynaynaa insha Allah inay soo gaarsiin doonaan raadiyo danan markii hore mar saddexaad anoo ku hadlaayo maamulka degmada Kaxda dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin maamulka raadiyo danan agaasimaha wariyaasha kala duwan dhammaantood waa mahadcelin dhinacayga gadaala waxaa dooban waa qoysas Soomaaliyeed ee ka yimid gobolada dalka raadiyo dana mas'uuliyiintooda iyo dhageystayaasha idaacadda ku xiran ayaana waxa hortayda yaalla raashin ee noocyadooda kala duwan ka kooban dhammaantooda soo ururiyay Maalin Ibraahim Yacquub raadiyo dana degmada Kaxda gobolka Banaadir كوهلن هلت ورسوغن همونا هايسو أيا هالدور دانا نوغانشا دتيو هيشي أيا هالدور دانا نوغانشا دتيو هيشي هرسيتي داعن هالبيكا كوه وغانو دورن هرسيتي داعن البيك كوه هوغانو دورن وباشي ودنا هوغانو دورن وباشي ودنا هوغانو دورن هرسيتي داعن البيك كوه هوغانو دورن هرسيتي داعن البيك كوه هوغانو دورن وباشي ودنا هوغانو دورن وباشي ودنا